السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. كسو دوادا channelka عيب العود. ما أنت وحال إذين وضع قصة دا سيتو أو لغسو وري أن كسو قاتي channelka محمد الحجازي. إذا بدن با إسو ويدي ماركستو كومنتس كوالي ويدي قصوين كيس إنو سو قد ما شاء الله هرت قصوين آدي في عمواي. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. I know normally waxaan soo geliyaa qisooyinka oo ah salawaadka maanta camal ama beri maadaama beri jimca ay tahay laakiin qisooyinka salawaadka waan ognahay salawaadka inaan badino waaye maalin kasto in nagula soo celceliyo waxaan markasta maqalnay xogaa waxay ila noqotay repetitive wixii lagu soo celcelinaa same thing xogaa waad ka caajisaysaa marka waxaan jeclaaday maanta inaan xogaa break taas ka qaadano kollayba salawaadka maalin kasta inaan samaysaan waaye jimcaha inaan u badisaan weeye hadaa rabtaan qisooyin kuwii hore dhan ku laabta qisooyin badan oo salawaadka ah waxaad ka helaysaan channelka insha Allah laakiin salawaadka in la badiyo weeye maalinlaha wardiga maalinta inaan ku dirsatidna waaye okay so qisadan marka maanta aan wado waxaan ka soo qaatay Al-Hijazi channelkiisa marka waxaan rabaa sida exactly uu isaga u soo wariyay uu soo sheegay ayaan idinku fasirayaa waxba aniga codkayga kuma darsanayo okay wuxuu yiraahday walaalayaal asxaabta aan ilaahay dartii u jecelahay taas aniga xataa waaye maanta waxaan idin wadaa qiso aad u qurux badan oo xiiso badan oo ka timid walaalkeen Maxamed Ibrahim Al-Sudani waxa weeye wuxuu yiraahday walaalkeen wuxuu leeyahay channelka The Truth la dhaho waa Carabi wuxuu ka hadlaa istighfaarta iyo suura Baqara iyo salawaadka nabiga sallallahu alayhi wasallam Al-Sudani wuxuu soo maray wixii anaga aan soo marnay ayuu yiri wuxuu ku dhaqmay wixii anaga aan ku dhaqmnay markaas ayuu Allah albaab badan u furay sidii aan sheegnay aad ayuu ugu firfircoon yahay TikTok ayuu yiri marka waad la socon kartaan ninkaas qisadiisuna runtii waa mid aad u qurux badan subxaanallah Allah mararka qaar wuxuu dadku u soo diraa fariimo anaguna mar walba waan jecelnahay fariimaha dadka inay noo soo diraan dabcan ma nihin kuwa leh qisadan waa xaq dhabta ah waa axaadiista nabiga sallallahu alayhi wasallam iyo hadalka Allah subhanahu wa ta'ala oo kitaabkiisa ku jira laakiin dadka intooda badan waxay rabaan qiso ay arkaan waxay rabaan daliil muuqda qisadiinu waa daliilada qisooyinkiinu waa wax aad ka heshay istighfaarta oo noo sheegaysaan yaa ugu badan dadka rumaysta yaa ugu badan dadka arrintaas si dhab ah u qaata ma qof noloshiisa hore u hagaagsanayd baa ma qof caafimaad qabaa dhalinyaro oo aabahood weli wax ka bixiyo oo masruufo miyaa qofkaas mararka qaar wuxuu dhihi karaa bal aan tijaabiyo oo arka waxa dhaca laakiin qofka sida dhabka ah kitaabka xoog ugu dhagan waa qofka dhibaataysan waa qofka murugaysan waa qofka wadooyinka dhan ay ka wada xirmeen qofka ay dunida ciriiri ku noqoto inkastoo adduunka uu balaaran yahay qofka xal walba raadiya balse waxba waaye xanuun iyo dayn iyo walbahaar iyo dhibaatooyin albaab kasta uu garaaco laga furi la'yahay qofkaas ayaa inta badan Allah ugu furaa albaab waaweyn oo istighfaarta sababtoo ah wuxuu arrinta u qaataa si dhab ah ayuu u qaataa oo serious ah meel kale uu aadama jirto marka shaydaanku u yimaado Allah mooyee meel kale uma ordi karo wax kale uma harin aan ilaahay agtiisa sidaa darteed markasta oo dhibaatadu sii adkaato Allah ayaa albaab fura ayaga albaab u fura dadku waxay yiraahdaan haddii mugdigu bato waagu waa soo dhow yahay dad badan baa hadalkaas waxay ku sheegaan mahmaah ahaan laakiin qofka fahmaya xaqiiqdaas waa qofka noloshiisii ku arkay qofkii dhibaatadu ku cuslaatay qofkii tabar iyo xeelad waayey qofkii la go'doomiyey markii dhibaatadu sii adkaato ayuu ilaahay albaab furaa sababtoo ah gacmahoodii ayay Allah u taageen kadib Allah wuu u maciinay kadibna qalbigoodii ayuu ku riday inay sii wadaan waxaan maanta haynaa qiso aad u qurux badan waxaan kaloo rabaa inaan daawadayaasha ku iraahdo weerarada shayaadiinta yaanay cabsi ku gelin ha ka baqina shayaadiintu way jiraan way idin hareersan yihiin laakiin haddaad akhrisaan suura Baqara oo aad ku dhagantihiin istighfaartiina iyo dikrigiina ma idin taaban karo waxaad moodaa inaad gashay colaada joogtada ah ee dhexmarta adoonka Allah iyo shaydaanka adiga ayaa ka xoog badan
ilaahay wuxuu yiraahday adoomadayda adigu ay awood kuma lihid adiga dhageysanaya ayaa xoog badan waxaa laga yaabaa in guriga ay joogaan dad wali ilaahay ka fog xitaa haddii ay tukadaan ama soomaan markaas ayuu shaydaanku mararka qaar kaa soo galaya dhinacooda laakiin ha baqin isdhowra suurtul baqara ku shid guriga dhexdiisa biyaha ruqyada ku buufi guriga waxaa jira arrimo waaweyn oo ay tahay inaad fahamtaan haysdhihina waan ka baqayaa hebel ama waa kan baqayaa waxaas maya ha ka baqin waxba ilaahay baa kula jira maxaad uga baqaysaa wallaahi mararka qaar cabsida xad dhaafka ah waxay noqon kartaa wax aan alla raali ka ahayn haddaba tani waa qisadii walaalkeen maxamed ibraahim al-sudaani oo ii soo gudbiyey inaa aniga aan akhriyo channelkeyga ka akhriyo marka wuxuu yiraahday assalaamu calaykum walaal xijaazi sideen tahay insha allah waad wanaagsan tahay wallaahi toddobaadkii hore waxaa ii timid qiso aad u qurux badan waxay ahayd qiso uu ii soo diray wiil dhalinyaro ah oo ka yimid waddanka Mauritania oo ku taala dhinaca Morocco geeskeeda qaaradda Afrika dad fiiriso qisadu runtii aad bay ii cajabisay laakiin waxa igu qasbay in adiga kuu soo sheego waa riyo ku saabsan anigii adiga labadeenaba ayuu wiilka ku riyooday wiilka Mauritania ka yimaada ayaa wuxuu ku riyooday riyo maxamed al-xijaazi iyo maxamed al-sudaani labadooda waxaan allah ka baryaynaa inay khayr noqoto ayuu yiri kadib qisadii wiilka ayuu bilaabay wuxuu yiraahday wiilkaasi wuxuu ii sheegay inuusan jirin dambi weyn uusan weligii samayn dambi kasta uu ku dhex dhacay noloshiisii oo dhan waxay ahayd xanibaado cudurro sixir iyo dhibaatooyin raaqi kasta ayuu tagay daawo kasta ayuu raadiyey xitaa isagoo ka yimid Mauritania ayuu meelo fogfog u safri jiray si uu u helo qof caawiyo oo daaweeya maalin ayuu la kulmay nin raaqi ah ninkii wuxuu yiraahday adiga waxaa kugu jira dhagax oo dhinaca kariyaha anigu ma garanayo siduu taas ku ogaada ayuu yiri ma raaqi baa wax ku garan kara mise dhakhtar weeye ninkani subxaanallah arrintaasi anigu ma garanayo ayuu yiri kadib ayuu wuxuu dhahay ninkii wuxuu sheegay inuu lacag badan u baahan yahay si loo daaweeyo maxay ahayd yiri 4,000 ma garanayo oo lacagtooda ah laakiin arrinta muhiimka ah taasi ma ahayn maalin baa muuqaalkaagii wuxuu yiri al-xijaazi muuqaalkiisii ayaa soo baxay YouTube ayuu arkay markii ugu horeysay uu iska bootiyay oo isdhaafiyay wuxuu yiri ninkani wuxuu u egyahay qof lacag doonaya ama qisooyin uu aruursanaya oo YouTube noo soo fariistay markaas muusan daawan laakiin mar labaad ayuu muuqaalkii haddana arkay oo al-xijaazi ayaa u soo baxay markaan uu daawaday uu dhageystay wuxuuna maqnay tala ah istighfaar badan sameey suuratul baqarana akhri markaas ayuu yiri bal aan isku dayo kulay wax kas waan try gareeyay aan isku dayatan dad badan ayaa laga yaabaa markii la maqlo tirooyinka waaweyn ee istighfaarta waxay dhahayaan 30,000 way badan tahay haddana waxay dhahayaan sidee suurtagal u tahay waxaani sidee suurtagal u tahay laakiin marka qofka uu ku jiro xanuun badan iyo sixir iyo dhibaatooyin iyo ciriiri aan xal lahayn wax kasta uu isku dayayaa si ilaahay ugu noqdo sababtaas ayuu wiilkan Allah subxaanahu wa ta'aala ugu soo laabtay markaas ayuu wuxuu bilaabay istighfaar badan wuxuuna bilaabay suuratul baqara 4 jeer soo istighfaarta 30,000 ayuu sameeyay I think waxaan u maleynayaa waliba 30,000 hore kama sameyn ilaa iyo heer waqti qaadanaysa laakiin istighfaartu uu bilaabay suuratul baqarana 4 jeer ayuu akhriyay kadib qiyaastii 12 beri ama 13 beri ka bacdi ayuu wuxuu sheegay ilaahay uu furay risqi aanan uusan filanayn wuxuu helay ku dhawaad $6,000 runtii meel aanan ka filanin ayay ugu timi markii dadkii maqleen qisadiisii waxay bilaabeen inay iyagan isku dayaan waxay yiraahdeen haddii isaga ilaahay subxaanahu wa ta'aala uu u barakeeyay anagana ma isku dayno oo wax ilaahay uu nasiin karaaye wuxuu ii sheegay Allah wuxuu iga bixiyay deymo ka badan $80,000 subxaanallah dabcan dadka qaar waxay isweydiinayaan sidee arrintaas ku dhacday laakiin isaga wuxuu ku adkaystay istighfaarta oo kaliya markii uu bilaabayna bilihii ugu horeeyay gurigiisii deganaan dhan waa iska hilmaamay sidii aad had iyo jeer aad sheegto ayuu yiri gurigii wuxuu noqday fowdo khilaafi badan ayaa dhacay muran badan ayaa dhacay xanaaq ayaa reerka ka bixi waayeen arrintu waxay gaartay in xaaskiisii xitaa uu furo laakiin isaga muusan joojin dhikirkiisii wali uu sii waday istighfaartii suuratul baqara muddo kadib xaaskii baa soo laabatay qoyskii dib ayay isugu soo laabteen gurigii deganaansho ayuu helay noloshiina si tartiib ah ayay isku bedeshay wuxuu sii waday ilaa 6 ama 7 bilood maalin ayaa saaxiibkiis u yimid saaxiibkiis wuxuu yiri war maxaad istighfaartan badan ugu dhigantaa intaas laakiin intaas ka hor waxaa dhacday arrin wuxuu yiraahday waxaan daawaday muuqaal uu qof gabar la yiraahdo Sanbal ma aqaan oo ka sameeyay istighfaarta badan muuqaalkaasi ayaa shaki ku abuuray wiilkan Mauritania ka yimid
wuxuu bilaabay inuu is yiraahdo bal ka waran haddii aan khaldanahay. Shakigaas dartiis ayuu joojiyey istikfaarta hal maalin ama 2 maalmood. hal maalin ama 2 maalmood. laakiin qalbigiisu ma deganayn, wuxuu dareemay inay wax ka maqan yihiin. Wuxuu is yiri waxaan rabaa inaan dib ugu laabto istikfaarta, sababtoo ah wuxuu arkay isbedelo waaweyn. Xaaskiisii way u soo noqotay, gurigii waa u degay, risqigii waa u furmay. Xitaa wuxuu ii sheegay mararka qaar anigoo suuqa maraya dad ayaa lacag i siiya anigoo weydiisanin, waxayna ku dhahayaan hoo lacagtan qaado, wax ku qabso, ama qaado lacagtan waxay kaa caawinaysaa arrimahaagii oo dhan. markaas ayuu arkay in arrimahay u furfurmeen. laakiin markii uu daawaday muuqaalkaasi shaki geliyay ayuu istikfaartii joojiyey. kadib habeen ayuu ilaahay baryay, wuxuu yiraahday rabbiyow istikfaarta haddaan sameynaya ay sax tahay itus calaamad, itus riyo ama wax ii xaqiijiya. kadib markii Allah uu baryay oo uu yiri rabbiyow istikfaarta aan sameynaya inay sax tahay itus calaamad, waxbaa dhacay. wuxuu sheegay in imaamka masjidka xaafadooda uu riyooday. riyadaas dhexdeeda ninkii Mauritaniga ahaa ayaa wuxuu gacanta ku sitay tusbaxa oo elektrooniga ah, uu tasbiix iyo ku sameynayay. markaas ayaa imaamkii intuu u yimid ayuu wuxuu yiraahday istikfaarta uu Maxamed Al-Xijaasi ka hadlayo waa saxe, ha joojin istikfaarta. kadib wax kale ayaa hadan riyadii dhexdeeda ku dhacay. misbaaxii oo elektrooniga ahaa wuxuu isku bedelay television weyn ayuu isku bedelay. markii uu isku bedelay television weyn waxaa ka soo dhaxbaxay 2 sawir. sawirka koowaad wuxuu ahaa Maxamed Al-Xijaasi, sawirka labaadna wuxuu ahaa Maxamed Al-Suudani. labadooda way ku wada jireen hal sawir. subxaanallah. ninkii wuxuu fahmay tani inay tahay fariin cad. waxay ahayd fariin ku leh sii wad istikfaarta oo ha joojin. markii hurdada ka soo toosay shakigu wuu ka baxay. wuxuu dib ugu noqday istikfaartii, wuxuuna sii watay suuratul baqara. maalintii xigtay ayaa saaxiibkiis guriga ugu yimid. soo dabaqa guriga dushiisa meel yaroo roof ah iyo meel la fariista ayay leedahay. meesha ayay fariisteen ayagoo shaah cabaya. saaxiibkii ayaa wuxuu ku yiri warkaale adiga istikfaartan aad ku aadatay maxay tahay? 6 bilood iyo 7 bilood baa wadaaye, waxna kaama muuqdaane, wax isbedelna kaama jeedee, ma naga joojisay ama maxaa u wadaa waxaan? ninka wuxuu ugu jawaabay maya, wax badan baa isbedelay. Allah wuxuu iga caafiyey cudurro badan. ilaahayna wuxuu ii furay risqi. gurigaygiina hadda waa degan yahay. dhibaatooyinkaygii guriga way yaraadeen, nolosheedina way isbedeshay. laakiin saaxiibkii wuxuu sii wada jaasjaaskii. wuxuu yiraahday waxaad iska khasaarinaysaa waqtigaada. waxaasoo dhan waxba kuma tarayaan. waxaad moodaa inaad waalanayso. markii sidaas uu yiri ninkii Mauritaniga ahaa ayaa gacmaha kor u taagay ayuu wuxuu yiraahday ilaahayow, soo saaxiibkiis la fadhiya. wuxuu yiri ilaahayow rabbiyo raxmaano haddii istikfaarta aan sameynaya sax tahay cirka roob noogu soo daadi. Maxamed Al-Suudani ayaa wuxuu yiraahday wallaahi waa wiilka siduu iigu sheegay. 2 saac gudahood daruurihii cirka way isqabsadeen, roobkiina waa soo da'ay. saaxiibkii aad buu ula yaabay ilaa uu yiri adigu saaxir baad tahay. subxaanallah. waa hadalkii lagu oran jiray nebiyada. waxaa lagu oran jiray saaxir ayaa tahay, waa waalan tahay iyo hadallo kale. laakiin saaxiibkiis ma fahmin in roobka ilaahay kaliya uu soo dejiyo. ma jiro jinni iyo aadan iyo malaa'ig ama cid kale oo roob soo dejin karta. ilaahay subxaanahu wa tacaala gacmaha kor intaa u taagto isagu unbaa roobka haya uu ku soo dejin kara. cid kale awood ma laha. markaas ayuu saaxiibkiis bilaabay inuu yaabo. kadib wuxuu bilaabay inuu dib uga fikiro arrintani. laakiin qisadu halkaa kama dhammaanine ninkii Mauritaniga ahaa wuxuu saaxiibku u sheegay arrin kaleeto. wuxuu yiraahday markaan quraanka akhrinayo mararka qaar waxaan arkaa musxafkii oo iftiimaya. saaxiibkiis markii hore ma rumaysan, laakiin maalin maalmaha ka mid ah ayay waxay daawanayeen muuqaalka Sheikh Al-Xijaasi oo ka hadlaya iftiinka musxafka iyo dad arrintaas hore u arkay. markaas ayuu saaxiibkii si tartiib u bilaabay inuu rumaysto. wuxuuna yiri waxaan u baahanahay inaan la xiriiro Sheikh Al-Xijaasi. waxaan rabaa inaan wax badan ka ogaado. marka Maxamed Al-Suudani ayaa wuxuu dhahay ma garanayo inay la xiriireen maamulka channelka iyo Maxamed Al-Xijaasi, laakiin qisada aniga ii soo direen buu yiri. waxa ugu muhiimsan ee qisada ku jira waa riyada. riyadaas ayaa noqotay calaamad. waxay u xaqiijisay inuu sii wado istikfaarta. waxay kaloo u xaqiijisay inuusan dhag u dhegin dadka shakiga gelinaya. waxay u xaqiijisay inuu ku sii socdo jidka uu marayo. saaxiibkiisna ugu dambeyn wuu qancay, isaguna wuxuu bilaabay istikfaarta. Maxamed Al-Suudani wuxuu yiraahday waxaan Allah ka baryaynaa inuu ilaahay nagu sugo jidka saxda ah. runtii qisadan aad bay cajiibsay ayuu yiri, gaar ahaan riyada quruxda badan ee aniga iyo Sheikh Al-Xijaasi aan ku wada jirnay. kadib markaas Maxamed Al-Suudani wuu dhameeyay sheekadii.
maxamed alxijaazi ayaa wuxuu bilaabay marka inuu ka hadlo qisada iyo videoga intiisa kaleeto marka wuxuu yidhaahday maxamed alxijaazi maasha allah tabaarak allah runtii waa riyo aad u qurux badan subxaan allah sida allah uu u sugay ninkaas eega sida allah uu ninka ugu xoojiyey inuu jidka istikfaarta sii saarnaado kadib wuxuu yidhaahday marka qofka uu xaqiiqda noolaado dadka kale mararka qaar ma fahmaan wuxuu u dareemayo waxay u malaynayaan inuusan qofka waxba haysanin marka qofka uu istikfaar badan samaynayo waxay u malaynayaan dadkaasi inaan waxba iska kaa bedelin sababtoo ah miisaanka ee dadka intooda badan wax ku qiimeeyaan ayaa wuxuu yahay hantida iyo guryo iyo baabuur iyo dhul iyo ganacsi iyo waxay rabaan inay arkaan qof sidii qaaruun camal u eg waxay rabaan inay maqlaan hebel dhul buu iibsaday hebel guryo ayuu iibsaday hebel hanti badan ayuu yeeshay markaas ayay yiraahdaan haa istikfaartu way shaqaynaysaa laakiin dadku waxay iloobaan aakhirada waxay iloobaan waxa ugu muhiimsan aniga ahaan ayuu yiraahday sheekh alxijaazi ilaah baan igu filan kulligiin ilaah baan nagu filan waxaan ku dhaaranayaa ilaahay cirka tiir la'aan kor u qaaday ilaah baa nagu filan alxamdulilah tusaale ahaan ayuu yiraahday bishan soo socota waxaa guursanaya wiilkayga qarashaadka guurkana waa badan yihiin sidaa ogtihiin laakiin haddana qalbigayga aad buu u degan yahay alxamdulilah taasi waa fadliga allah subxaana watacaala taasi waa nimcada allah subxaana watacaala dad badan baa waxay sanado badan shaqeeyaan caruurtooda si ay u guuriyaan laakiin allah subxaana watacaala markuu kuu fududeeyo arrin qalbigaaguna degan yahay taasi waa nimco weyn kadib wuxuu fariin u diray kooxaha oo whatsappka iyo telegramka ku mashquulay gurubyada wuxuu yidhaahday walaalayaal waxaad kooxahan ugu biirteen inaad isdhiirigelisaan inaad isku xoojisaan istikfaarta laakiin mararka qaar dadku waxay waqtigooda ku lumiyaan nuqul iyo dhajin iyo sawiro lasoo dhigaayo iyo qoraalo badan lasoo qoraayo iyo hadallo badan iyo muxaadarooyin badan lasoo gudbinayo waxyaalaha ay meelaha kale ku arkaan bay soo wada dhigaan maalin walba qof ayaa wax soo diraya qof kale haddana wax kale soo dhigaya kadibna qof kale ayaa haddana wax kale kusoo daraya laakiin istikfaartii lafteedii waa layska iloobaa wuxuu yidhaahday dad baa mashquulkooda dhan ka dhigtay inay hadallo meel kasta kasoo guuriyaan oo kooxaha usoo daadiyaan laakiin yaa akhriyay dhammaan hadalladaas yaa ka faa'iidaysta arrimahaas oo dhan sanado badan bay isaga jireen youtubeka iyo meelaha laakiin xaaladihiinu sidee bay ahaayeen dad badan weli way dhiban yihiin marka wuxuu yidhaahday ku dhaga istikfaarta toobadkeena ilaahay u noqda allahna isagaa ku hanuunin doona jidka saxda kugu hanuunin doona ilaahay subxaana watacaala wuxuu yidhaahday kuwa dadaala darteen waxaan ku hanuunin doonaa waddooyinkayga kadib wuxuu ka hadlay ninkii muritaaniga ahaa wuxuu yidhaahday ninkaasi markuu yiri rabbiyow haddii istikfaartaada saxdaa roob noo soo daadi ilaahina roobka waatuu u soo daadiyey taasi waxay muujinaysaa inuu ninkaa ilaahay yaqaanay inkastuu hore u galo dambiyo waaweyn haddana wuxuu sameeyey toobad dhab ah toobaduna waa furaha ugu weyn ilaahay subxaana watacaala wuxuu yidhaahday waxaad tiraahdaa addoommadaydii naftoodii ku xadgudbayoo ha ka quusanina naxariista ilaahay subxaana watacaala kadib wuxuu yidhaahday toobad keen bog cusub maanta furo oo ilaahay la furo bog cusub bage cusub la furo istikfaartuna waa jidka ku geeyeysa halkaasi dad badan waxay moodaan in arrintu keliya ay tahay urursada xasanaad la aruurinayo laakiin haddii arrintu xasanaad keliya ay ahaan lahayd maalin kasta waxaad akhrisan lahayd qur-aanka oo keliya sababtoo ah xaraf kasta wuxuu leeyahay 10 xasanaad markaas maxaa loo sameeyey tasbiixda iyo tahliilka iyo takbiirta iyo salawaadka iyo istikfaarta waxay leeyihiin sir ka weyn ururinta oo xasanaadka la ururinayo waxay qofka baraan inuu ku sugnaado diinta waxay qofka baraan inuu allah ku kalsoonaado waxay qofka baraan inuu arko calaamado iyo furitaan ka yimaado ilaahay wuxuu yiri qofku wuxuu u baahan yahay wax uu dareemo wax uu arko wax qalbigiisa xoojiya taasi waa sababta ninkii muritaaniga ahaa markuu arka calaamadahaas uu sii xoogaystay kadib sheekh maxamed alxijaazi wuxuu ka sii wata hadalkiisii wuxuu yiraahday waa inaan diinta gaarsiinaa dadka si sax u gaarsiinaa waa inaan dadka tusnaa jidka ma aha inaan dhahno tag oo samee kadibna aan wax kale u sheegin maya taas ma aha waa inaan siinaa qariirada jidka waa inaan u sheegnaa waxa laga yaabo ee la kulmayaan waa inaan u sheegnaa sida ay isku ilaalin lahaayeen tusaale ahaan marka qofka uu bilaabo istikfaarta waxaa laga yaabaa inuu la kulmo weeraro waxaa laga yaabaa inuu la kulmo caqabado waxaa laga yaabaa inuu la kulmo dhibaatooyin markaas waa in loo sheegaa ilaali adkaarta subaxda ilaali adkaarta galabtii ilaali adkaarta hurdada ku dheg suurta baqara iyo istikfaarta wuxuu yiraahday
qof markaas markuu 2 ama 3 bilood sii socdo ilaahay albaabada uu u furaa nicmooyin ayuu ilaahay u furaa markaas ayuu bilaabaa inuu fahmo wuxuu fahmayaa marka sababtii dhibaatooyinkaas u yimaadeen sababtii loo imtixaamay sababta furtaanadan u yimaadeen kadib wuxuu yiraahday sidan ayaa loo gargaarayaa diinta sidan ayaa loo gargaarayaa sunnada nabiga sallallahu alayhi wasallam sidan ayaa loo muujinayaa runnimada iyo xadiista nabiga sallallahu alayhi wasallam ma aha hadal kaliya waa in qofka uu ku dhaqmaa markaas ayuu arkaa natiijada kadib wuxuu ka hadlay dadka qaarkood ee diinta haysta cabsi kaliya kadib wuxuu ka hadlay dadka qaarkood ee diinta ku haysta cabsi kaliya wuxuu yiraahday dad badan way tukadaan way soomaan laakiin sababta ugu weyn ee waxaas oo u sameeyaan waa cabsi waxay ka baqayaan naarta waxay ka baqayaan ciqaabta laakiin iimaanka dhabta ahi waa wax ka weyn cabsi kaliya wuxuu yiraahday mararka qaar salaada aynu tukano waxay noqon kartaa mid aan saameyn weyn ku yeelan nolosheena sababtoo ah weli ma aynan gaarin heerka iimaanka dhabta ah sababtoo ah qofku wuxuu sheegan karaa inuu ilaah yaqaan laakiin ficiladiisii waxay muujinayaan wax kale qofku wuxuu sii wadaa dambiyadii dulmigii iyo danaystinimadii iyo xumaantii kadibna wuxuu la yaabayaa sababta is arrimihiisu isku bedelin Allah wuxuu u ballan qaaday guul dadka mu'miniinta ah laakiin dad badan ma ogaan inay weli ku jiraan heerka islaamka oo kaliya weli ma gaarin heerka iimaanka xoogan kadib wuxuu bixiyay tusaale wuxuu yiraahday bal qiyaas arday baranaya injineernimada wuxuu bartay 1 sano oo kaliya kadib wuxuu tagayaa shaqo oo shirkad oo injineernimo ah wuxuu dhahayaa shaqo isiiya markaas waxay ku dhahayaan may kuma siinayno weli ma aadan dhameystirin waxbarashada weli ma aadan qaadan shahaadada sidaas oo kale ayuu yiri dad badan waxay rabaan natiijooyinka mu'miniinta laakiin weli ma aadan gaarin heerkii mu'miniinta weli ma aadan dhameystirin jidkii weli ma aadan gaarin yaqiin buuxa weli ma aadan gaarin kalsooni buuxda oo Allah lagu qabo mu'minka dhabta ah ma iibiyo diintiisa ma iibsado diintiisa lacag yar darteed ma iibsado diintiisa rabitaan adduunyo darteed mu'minka dhabta ah wuxuu yaqaan in risqigiisu ilaahay gacantiisa ku jiro laakiin dadka intood badan waxay taas ku yaqaanaa hadal ahaan oo kaliya markay arkaan qof baabuur iibsaday ama guri iibsaday ama hanti yeeshay waxay bilaabaan in isbarbar dhigaan waxay yiraahdaan aniga waan tukadaa waan soomaa laakiin isaga ayaa iga lacag badan markaas waxay bilaabaan inay fahmi waayaan qadarka Allah subhanahu wa ta'ala wuxuu yiraahday dad badan baa waxay yiraahdaan Allah qofkan lacag ayuu siiyay qofkaas caafimaad ayuu siiyay qofkaas carruur ayuu siiyay laakiin hadaladaas inta badan waxay ka yimaadaan dad aan weli si dhab ah ugu noolaanin axaadiistii nabiga sallallahu alayhi wasallam kadibna wuxuu yiraahday qof kasta oo ku dhaganaada istighfaarta si dhab ah mid lacag waaye lacag Allah uu siiyay mid carruur waaye Allah carruur ayuu siiyay mid caafimaad waaye Allah caafimaad ayuu siiyay mid dalkiisii laga masaafuriyay ilaahay dalkiisii ayuu ku soo celiyay dadku waxay mararka qaar yiraahdaan cudurkan waa inuu ila sii noolaadaa la noolow cudurka la qabsado cudurka laakiin ilaahay subxaanahu wa ta'ala dad badan ayuu caafiyay oo complete caafimaad siiyay markay istighfaartay si fiican ugu dhageen qaar Allah si toos ayuu caafimaad u siiyay qaarna wuxuu tusay jidkii saxda ahaa ee caafimaadka kadibna wuxuu bilaabay inuu ka hadlo shiiqa cunnada iyo caafimaadka wuxuu yiraahday rasuulka sallallahu alayhi wasallam wuxuu yiraahday wiilka aadam ma buuxiyo weel ka xun calooshiisa wuxuu kaloo yiri waxaa ku filan qofka dhowr cad yar oo hilib ah oo istaajiyo uu xir ku noolaado haddii uu qasab ku noqdo inuu wax badan cuno 3 meelood meel cuntada 3 meelood meel biyaha iyo 3 meelood meel hawada kadibna wuxuu yiri haddana dad badan maanta waxay noloshoodii ka dhigeen cunto subax cunto duhur cunto fiid cunto macmacaan cabitaano wax walbaba cunto ayay ku wareegayaan laakiin taasi waa albaab weyn oo cudurro badan laga soo galo wuxuu yiraahdaa haddana anigu hadda waxaan bilaabay inaan iska ilaaliyo cabitaanada gaaska leh sida kookada iyo waxaas rootiga cad iyo muufada cad iyo waxyaabo badan oo warshadaha lagu soo sameeyay waxaan bilaabay deganaansho gudaha inaan ka dareemo waxaan dareemay inaan si ka duwan u noolahay hadda alxamdulillah kadibna wuxuu yiraahdaa istighfaartu waxay qofka ku hogaamisaa jidka xaqa ah Allah ma cadaabo qof istighfaar badan sameeya waa laga yaabaa inaad xanuunsan tahay waxaa laga yaabaa inaad deen lagu leeyahay waxaa laga yaabaa inaad walbahaar waxa qabto laakiin ku dadaal inaad noqoto qof mu'min oo dhab ah istighfaartu waxay kugu hogaaminaysaa iimaanka markaad noqoto mu'min dhab ah
waxaad arki doontaa ballanqaadyada ilaahay subxaana watacaala oo rumoobaya. kadib sheekh xajaasadan wuxuu yiraahday walaalayaal qofku waa inuu fahmaa farqiga u dhaxeeya muslimka iyo mu'minka. dad badan baa muslimiin ah, waxay ku dhasheen qoys muslim ay ka dhasheen, hooyadu waa muslim, aabahood waa muslim, magac muslim ayay leeyihiin, way tukadaan, way soomaan, laakiin weli ma gaarin heerka iimaanka dhabta ah. wuxuu yiraahday qofka islaamka ku dhashay mararka qaar wax badan ma baaro, wax badan ma raadiyo, wax badan isma weydiiyo, sababtoo ah uu ku koray jawigaas ayuu ku koray. laakiin qofka cusub islaamka soo galay mararka qaar wuxuu weydiiyaa su'aalo badan iyo baaritaan badan ayuu galaa, jawaabo badan ayuu raadiyaa, markaas ayuu si fiican u fahmaa diinta. wuxuu yiri istikfaarta iyo suurat al-baqara iyo salawaadka iyo adkaarta dhammaantood waxay qofka ka caawinayaan inuu gaaro heerka iimaanka. waxay qofka baraan inuu ilaahay yaqaan, waxay qofka baraan inuu ilaahay ku kalsoonaado, waxay qofka baraan inuu si dhab ah ugu noolaado diinta. qofka marka uu ku dhago istikfaarta, ilaahay wuxuu furaa waxyaabo badan, wuxuu bilaabaa inuu arko calaamado iyo nimcooyin iyo furitaan iyo hanuun iyo fudayd mid waxyar kale ilaa uu qalbigiisa ku xasilo ilaahay subxaana watacaala. waxaa laga yaabaa maanta inaa dayn lagu leeyahay, murugo aad ku jirto, xanuun aad ku dhex jirto iyo dhibaato, laakiin ilaahay wuxuu ballan qaaday inuu kaa furo qofka isaga u noqda, inuu hanuuniyo qofka isaga u noqda, inuu u gargaaro qofka isaga u noqda. qofku waa inuu bilaabaa page cusub, toobad dhab ah, istikfaar badan, salaad, quraan, adkaar, kadibna ha sugo ilaahay nimcadiisa. wuxuu yiraahday marka Allah uu jid kuu furo waxaad si dhab u fahmaysaa axaadiista nabiga sallallahu alayhi wasallam, waxaad ogaanaysaa in hadaladiisu dhammaantood xaq yihiin, waxaad ogaanaysaa in wixii nabiga sallallahu alayhi wasallam uu sheegay ay run yihiin, waxaad ogaanaysaa in Allah subxaana watacaala aan cidna badan ka jabin. walaalayaal waxaan mar walba idinku dhiirigelinayaa in dadka qisadooda noo soo diraan. qisadahani waa kuwa dhiirigeliya dadka, waa kuwa qalbiyooda xoojiya, waa kuwa dadka ku dhiirigeliya inay ku dhagaan istikfaarta. haddii aad qiso leedihiin noo soo dir buu dhahay. maxaa kaleeto qisooyinku ka hadlayaa inuu qof walba qisooyinkiisa soo gudbin doono. wuxuu kaloo yiraahday kooxaha iyo gurubyada ha noqdaan kuwa dadka ku dhiirigeliya istikfaarta, ha noqon yiri kuwa ku mashquula oo in maanta oo dhan wax uun leh soo dhigayaan. dadka mararka qaar waxay maalintii dhan ku qaataan soo gudbin fariin un bay soo gudbinayaan maanta dhan buu yiraahday, laakiin ayagii ma dhiirigelinayaan dadka toos, ayaga laftigoodina ma samaynayaan, laakiin istikfaarta lafteeda ma samaynayaan. wuxuu yiraahday anigu markasta marka xilli khayr yimaado ma joojiyo wardigayga, ma joojiyo istikfaarteeda, ma joojiyo suurat al-baqara. tusaale ahaan marka ay yimaadaan maalmaha fadliga badan ama xilliyada cibaadada waxaan kordhiyaa camalkaas, laakiin ma joojiyo wardigayga asalka ah. anigu ma seexda anigoon akhrin suurat al-baqara, xitaa haddii habeenku aad igu dheeraado, xitaa haddii aan waagu soo dhow yahay, waa inaan dhammeeyaa suurat al-baqara. dad badan markii xilliga cusub yimaado waxay rabaan inay qabtaan wax kasta hal mar, laakiin marka Allah kuu furo oo xaaladaada kuu hagaagto, markaas ayaad awood u yeelanaysaa inaad qaadato camalo badan. marka hore ilaahay baro, axaadiis nabiga sallallahu alayhi wasallam ku dhaqan, kadib arag natiijadiisa, kadib dadka gaarsii. sidaas ayaa loo taageeraa diinta, sidaas ayaa loo taageeraa nabiga sallallahu alayhi wasallam, sidaas ayaa loo xoojiyaa iimaankaaga, sidaas ayaa loo helaa calaamado muuqda oo qofka ku suga jidka saxda ah. marka ilaahay idin barakeeyo ayuu dhahay. waxaan sii wadi doonaa qisooyinka dadka ku dhagan istikfaarta insha Allah. qisadan runtii aad bay ii cajabisay, gaar ahaan riyadii quruxda badneed ee ku jirtay. ilaahay ha nagu sugo xaqa, ilaahay ha naga aqbal camalkeena, aamiin. ilaahay hana waafajiyo waxa uu jecel yahay, kuna raali yahay, aamiin yaa rab. qisada intaas way ku dhamaatay, xooga way dheeraatay, laakiin alxamdulillah ani laftayga wallahi aad iyo aad ayaan uga faa'iidaystay. waxyaalo badan wallahi waa ii baxay qulubteedina. qisada ka badan I think waxaa aad iyo aad ii cajibiyeyba siduu u fasiray u dhiirigelinayo dadka. marka taas inaan ka casharo qaadana weeye. xataa cuntaduu ka hadlay, mee wuxuusan ka hadlin ma jirto, subxaanallah. marka qisadeen maanta intaasay ku eg tahay. wasalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu.